bismillaahi raxmaani raxiim daawadayaal waxaad ku soo dhawaataan wararka Ramaal Media qodobadiisa ugu doorkaroona waxaa ka mid ah xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa maanta oo Sabtiya shaacisay in ay muddo 2 maalmood dib u fasaxday diyaaradaha ka imaanaya dibadda si ay u soo qaadaan muwaadiniinta Soomaaliyeed ee ku xaniban garoomada caalamka. Saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa lagu sheegay in labadaasi maalmood kadib uu sii socon doono amarkii lagu joojiyay duulimaadyada caalamiga si looga hortago faafidda caabuqa coronavirus. madaxtooyada Puntland ayaa si rasmi ah u beenisay warqad lagu faafiyay baraha bulshada oo sheegaysa in Puntland ay xanibaad ku soo rogtay wasiiro ka tirsan xukuumadda federaalka Soomaaliya oo ku sugan magaalada Garowe. Qoraal ka soo baxay madaxtooyada Puntland ayaa lagu sheegay in warqadda lagu faafiyay baraha bulshada aysan soo saarin dowladda Puntland isla markaana ay ban abuur cad tahay. Warqadda lagu faafiyay baraha bulshada ee laga dhigayo inay ka soo baxday xafiiska madaxweynaha Puntland kuna saabsan wafdiga dowladda federaalka Soomaaliya ee Puntland waa mid been abuur ah oo aysan waxba ka jirin. wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada iyada oo tixraacaysa war-saxaafadeedkeedii ka soo baxay wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada xukuumadda federaalka Soomaaliya oo lagu fasaxay diyaaradaha dalka soo galaya muddo 2 cisho waxay sheegtay in ay gali doonaan karantiilo muddo 14 beri ah oo ka bilaabmaysa maalinta ay yimaadaan dhammaan muwaadiniinta ka yimaada dalalkan soo socda: Shiinaha, Yurub, Mareykanka, Koonfur Kooriya, Australia, Canada, Turkiga, Pakistan, Masar, Hindiya, Imaaraadka Carabta, Malaysia, Sacuudiga, Koonfur Afrika. Dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in duulimaadyada dalka ay fasaxday muddo 2 maalin ah si ay dalka u yimaadaan muwaadiniinta Soomaaliyeed ee caalamka ku xayiran. halkaad warkaasi kala socoteen waa warbaahinta Ramaal Media. iminkan akhbaaradkii dibadda. warar soo baxaya ayaa waxay sheegayaan in dalka Talyaaniga ay ku dhinteen tiradii ugu badneed ee dadka uu saameeyay ama uu ku dhacay caabuqa halista ee coronavirus. maalin kaliya ayaa waxaa la xaqiijiyay dalkaasi ay ku dhinteen dad tiradooda ay gaarayso 427 ruux kuwaas oo uu saameeyay caabuqa coronavirus, taas oo ka dhigaysa in uu ka badan yahay tirada dadka ugu dhintay caabuqan dalka Shiinaha ee uu ka soo ifbaxay markii ugu horeysay ee dunida lagu arkay. tirada dhimashada ee dalkaasi ayaa haatan maraysa 3405, taas oo ka badan tirada dadka ku dhintay dalka Shiinaha oo ah halkii markii hore uu ka dilaacay. warka Ramaal Media waad ka dhageysanayseen warbaahinta Ramaal Media waa naga intaas. warkan warka xiga inta aynu ku kulmi doono waa anigu Axmed Cabdullaahi Jaamac oo idinleh sidaas iyo nabadgelyo.